ardayda jaamacadaha ka baxda Soomaaliya arag markay qalin jabinayaan oo jaamacad ay dhameeyaan dufcadan oo dhan meel waxay tagayaan sawirradooda dhan ay ku dhijinayaan dufcadan ayaa qalin jabinaysa xafladii qalin jabinta markaas xaflad ayaa la dhigayaa markaas Ilaahay waan qalin jabinay jaamacadii aan dhameynay waad mahadsantiin khayr Allah idin siiyo jaamacadaas kuwaas dhameeyay tirada badan meesha ku dhagan kuwa aan ka yarayn baan maalin walba inta isku soo dhajino baan kor waxaan uga qoraynaa tacsi Allah u naxariisto kun way qalin jabiyeen marka ilaa intee wadaynaa marka way qalin jabiyeen way wadeen tacsi markii la iswareysay waxaan xagee ka imaadeena ma la isweydiinay ma la dhahay war inteen xal u raadinaa cid isweydiinaysa male beesh caalamku wax la yiraahdo oo mushkilada way fiirinayaan meesha ugu xun markay marayso ay dabka isku raacinayaan kana way u tagayaan hay kan way la shiraayaan kana way la shiraayaan waa sidii waxay naga dhigeen inay waxa la haween intuu qabayba wax isku khilaafeen horta talow yu jecel yahay islaamaha markaas odaygu nin khatar waa wuxuu yiri intaad sii jeesataan midii aan dhabarka ka taabto ayaan jeclahay markaas ay sii jeesteen markaas intoodiiba dhabarku ka taabtay mid walba sii deysay anuu jecel yahay marka dhabarka istaabashay inta la iska daayo quraanka inoo sheego gaaladina ma jecelo inagum ba daba ordayna ma ogiye ilaahay wuxuu yiraahdaa antum ulaa'i wardad yahu idinkan ha antum ulaa'i idinkum ba tuhibbunahum jecel wala yuhibbunakum laakin ayagu idin ma jecelo kuwa badaan oo inay rabin ayaa kamid ah kuwa soo baxay waxa kamid ah Barack Obama ma yaga rabi wuxuu ku soo baxay leey jidkii la mari jiray loo maray bas tag suula kursi soo ku fadhiyay la arkay ma dhahayo ninkan madow waaye cadaan ma aha aan la gadina ma jirto hal hadii la gadiyo oo si isku ogaa laga leexdo hadhow meel laga soo qabtay lama helaayo waqtigiisa dhameystay ka leexda waqtigiisu dhameystay doorashooyin kala laga baarlamaan congress si loo waday Ilhaan Umar soo baxday oo Soomaali ah Mareykanka odagii waa kan Ilhaan Umar waxa is haysta Trump marka gabadheen haday Trump la dagaalayso horta bal meesha aan joogno ogaada gabar Soomaaliyeed iyo Trump ayaa facsiman oo way la dagaalaysaa asna warkiisu sheegtaa aydan warkeeda sheegataa marka dambana ardayda kala celiyo maal dhihi doona intii meesha ku dhimatay Allah u wada naxariisto kii dilay iyo kii dhintay kulli Allah u wada naxariisto inta noolna Allah wada kulligeen marka Allah wada naxariistaana marka xal ayay naga rabtaa xalkuna islaamku ku jiraaye islaamkeena iyo diinteena intaan aamino makriga iyo shirqoolada la inoo maleegayo ee la inagu sameeynayo ee danteena aynu ku jirin ee gaabo ay sameeynayaan iyo inaan sidaan ka baxan aan diyaarka loo ahayna seen la lagu haayo sidii looga bixi lahaa hadayna dad u kicin oo warseen ka yeelna laga tashanin saan baa lagu jiraa mar khayr Allah siiyo bariga waxa jiray bariga oo jaadka la joojin jiray bariga jaadka inta la joojiyo qofkii lagu arko dabargoynta qaadka dhig jiray waa la mamnuucay guriga la wareegay liiro waad ogsoontiin dadka waxa yaqaana jaadka soo ma joojin dadka madaxda ee jaadka joojintiisa soo saaray ee dadka dadweynaha ku ciqaabaya ayagu way qayiraan waa loo keenaa sidoo loo keenaa galabtii iyo habeenkii u fariisanayaan way qayiraan jaadka waa la joojiyay guriga lagu wareegay waxa la jaad lagu qabtay oday garsoora waqtigaas xilligaas yaa kuwo jaad lagu soo qabtaa loo keenay uu diiwaan geliyay intay ahaayeen inta jaadka lagu soo qabtay waxa la marka faylkooda la soo cadeeyo baaritaan lagu soo sameeyo hal soo celiyo mar kale markii kale inta la gaar xabsi markii lagu celiyay intii dawladda show kuwa ka agdhow isku reerka ahaayeen hoosta laga sii daayay intii kale baadana lagu soo celiyay maxkamadii garsoore markuu yeeray hebel aawe ma joogo kuwii askartu weydii wuxuu dadkii kale aawe ana gudoomiye waan soo kaadinayna intay dhaheen ayay baxsadeen masaasaha afmaameentu kula hadlay sheekana qaadno Allah naxariisto dhintay intii maxaabiista kale ay meesha fadhiday ayaan la sii deynin ya warantu qoxay isiin baha kaadiya idinka bax soo kaadiyay hadii inta la soo kaadiyo iska baxsanaayo maxay idin meesha ku haystaan kaadid ma ismiyay ordu idinka soo kaadiyo يعني دينتي إسلامك أهيد وحي إلهي وحارانتني مي أول لوجيدو
hadduu uusan markaa asaga markaas u muuqato adduunyo una uga jeedin wuxuu leeyahay inoo wada hawsha war ilaahay ma ogole ka joog mida waxaa la yidhi wuxuu yidhi 4 naawood ka badan aan guursanaa dadkeenni way dhammaadeen dagaalla lagu dhammaaday si aan intii dhintay u soo gudo waa inaan 20 iyo 30 iyo meelahaas guursado waxaa la kitaabka ilaahay ma ogola 4 ka badan markaasuu yidhi iga leexo kitaab ilaahay dantay moog kitaab ilaahay muxuu dantay ka ogyahay dantay anaa aqaana ma kitaab danta yacni marka arrintu ay noqoto dantayda anuun baa aqaana taasi wax sax ma aha danta ilaahay baa yaqaan alaa ya'lamu man khalaqa wa huwa latiiful khabiir wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuun ilaahay wixii aan samayn jiray carafan soo istaagay adna waad ii ogtahay anna waan is ogahay wixii xumaa aan samaynayay halkan aan kaga toobad keenay oon dhigay ilaahay marxaati ka ahow wixii dadku ay ugu lahaayeen waan u celinayaa iafiyana waan dhahayaa dib dambana u geysan maayo kacbadaada agteedana ballan ku galay masaama soo dhaaya ma dharca intuu ku gasto halka uu ku joogo oo wuxuu leeyahay duro Facebook kala socdaa markii wax laga sheegay aan idin soo noqdo xaquba ka soo dhaaranaya maxaad noogu soo noqod nagarabta soo adigii toobad keenay ma aha yaani ka soo qabaysay ma dambiga waxay un ka dhigeen soo hadda midalan ajal marka dhageysanayso hawl yar inaad qabsato aad rabtid soo macala bows soo lama taabto dambigu mu bows u yar istaagsi bas bows loo dhaay bas inta maalmaha xaj kala joogo bows u yahay markuu ka soo laabtana meesha muu ku dhufan bowskii uu ka qaadaya halkii uu ka sii wadaya idan xajkii muxuu taray alxajul mabruur ma kaas marka ko mukhayad soo galay waxa la yiri sokor iyo waxbuu qabay wuxuu yiri sokorta kabariyay wuxuu yiri sokorta haygaga soo darin waan iska mashquulsan oo ahaaye sokortii uu ku soo daray shaahina korku uga soo daray uu soo hordhigay markuu soo fiiriyay nus wax ku dhow sokor waa markaas sokor uu qabay dhiikarka ku kacay qaylo wiilkii yaraa ku qaylo wariyaas oo kuma dhihin sokor haygaga soo daray maxaa sokor ku soo dartay wiilkii kama baahan wuxuu yiri adeer ha ku qasinno korle kacbis markaad waxaan ka wada kii mucaarado waxba dilaynin oo la dawladda halkaas ay ku khaldan tahay soo maaha wixii ay ku khaldan tahay la sheegay ha ku qasinno adi meeshii la iska toosi laakiin waxa dib u heshiisiin u baahan dadka isdilaaya hadda ka hor qisay waxa ninaa meel uu sheekh ka ahaa marka sheekhani waa nin rageed maahine cilmiga ma yaqaano dadku iska waabsadaa marka laakiin mida uu imaaday maalinka dambe marti oo sheekho laakiin wax yaqaana wuxuu dadka ku wacdinaya oo leeyahay qaala ta'ala ilaahi wuxuu fankihu ma daaba lakum min an-nisaa fankihu tukada ma daaba lakum min an-nisaa mathna laba tukada oo waxa laga wadaa salaada subax iyo warubaaca iyo wathulatha warubaaca thulathana waa maghribka warubaacana waa inta kale marka fankihu tukada sheekhu uu yaabay wuxuu yiri intuu la hadlo adeer ilaahay baan kugu dhaarshay ma fankihu baa tukada wuxuu yiri oo maxay tahay deenahay fankihu tukada maxaa lagu fasiri karaa markaas uu gartay marka meesha in la soo galay bas inuu meesha cishtan uu rabo odaygu oo fankihu tukada la isii ahaato wuxuu yiri dadkii intuu la hadlo dhageystay ninkaas bari subax ayaan masaajidka isugu imaanaynaa waana doodaynaa qofkii cilmi la idinkaana kala saaraysiin hadda dadweynaha tihiin saddex su'aalood baan weydiinayaa hadduu saddexda aan ka helo oo uu yiraahdo hadduu ku jawaabo inuusan waxba aqoonin oo mid dhaalim ah oo aniga gardarhaysana inuu yahay saa uu ogaada waayahay bas meesha la sugu imaaday wadaadkina uu imaaday haye sheekhi haddii ugu haysay fankihu tukada aaway waa anigu ana kugu haysay fankihu tukada ma ah markaasuu yiri su'aalan ku weydiinaya markaasuu yiri weydii ilaahay soo ma dhihin qul huwallahu ahad markaasuu yiri ha allahu samad soo ilaahay ma dhihin ha lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad soo ilaahay ma dhihin ha maxay tahay arbaax u dhaha ku dhuftay waa la isku booday marka ninka saddex mar ha ma kaga sii horta muxuu rabaa marka meeshuu rabaa inuu qaso way isla qasantay marka dadkii waxay dhahaan marka culimada kala qabta hadda kismaayo waxa ka socda waxa waaye culimada kala qabta inna inoo taala marka saa culimada ku kala qaban lahayn reeb baadiyaha moogtahay sida magaalada kale ma kala lahaa
qolal oo ay kala seexseexdaan waalidka iyo caruurta iyo male aqal Soomaaliga la wada seexdaan kuwa ku kuusana marka aqal Soomaali dhinac ka seexda reebaadusay wax ku dhal ayaga yaqaan marka saas ay taani waxan baa la dhalaa mar ay seexdeen ilmuhu haday doonaan markaas kadib laga dhigto dib loo dhigto habeena marka ilmihii mid ka mid ah oo inuu seexday loo maleeyay malaha ma buuna seexanin wuu soo jeeday waxbuu arkay markaas subaxdii yuu ku yar uga sheekay wuxuu yiri waxbaan ku tusi caawa seexanin haye istaan baa la galay ilmi istaan bay ugu jireen xilligii dambe ee xaaladu ay ahayd ayaa la gaaray kii wax ballamiyay ee hore yaa wuxuu damcay inuu kii toosiyo oo yiraahdo hawsha hadday bilaabanaysa markuu damcay inuu toosiyo ayaa wuxuu yiri waryaa waan soo jeedaa indha farahay gelin indha farahay gelin niyowan hadda Soomaali xaaladda ay joogto waxay tahay waa la soo wada jeedaa kuwa waxay marka dadka indha farahay geliyaan waa la iswada fahmay waxa la isku haysto waa kursigaasi seen uga heshiina intii la yiraahdo taas inagoo heshiisay dan inoo wada tahay saas ma lagu qaybsadaa ilaa laga gaaro ma soconayso